iyo lafta gareen ay si weyn uga hor imaadeen isla markaana ay mowqif adag ka istaageen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmo axmed madoobe maxayse ku diidan yihiin qoorqoor iyo lafta gareen la kulanka axmed madoobe iyo sidoo kaleeto in lagala hadlaba doorashadii isku caanashubka ahayd maxayse tahay qodobka ay ugu hanjabeen madaxweyne xasan haddii uu la kulmo axmed maxamed islaam axmed madoobe qodobkeena koowaad ayaan ku iftiimin doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto xogaha hordhaco naga soo gaadhay kulamadaasi waxyaabaha ay kusoo gabagaboobeen iyo weliba qoorqoor iyo lafta gareen oo mowqif adag ka istaagay la kulanka axmed madoobe ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo oo u muuqda mid gabaabsi ah rajada laga qabo in madaxweyne xasan uu tago magaalada kismaayo ayaa gabaabsi sii gelaysa kadib markii la ogaaday xoga hordhaco kasoo baxaya magaalada kismaayo taasoo la xidhiidha in axmed maxamed islaam axmed madoobe naftirkiisa uu doonahayo in uu ka laabto heshiisyo maalmihii lasoo dhaafay la sheegay in si hordhaca looga gaadhay khilaafka siyaasadeed ee markaasi u dhexeeyey axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kaleeto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo la xidhiidhay hanaankii isku caanashubka ahayd ee doorashadii axmed maxamed islaam uu ku qabsaday magaalada kismaayo iyadana waan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qeybta commentiga aan ku bilaabe waxaa xogo hordhaca ay kasoo baxayaan kulamadii ugu dambeeyey ee ay wada yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleeto madaxweyneyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug axmed kaariyo qorqoor iyo sidoo kaleeto lafta gareen ayaa la sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay kala hadleen tegitaanka magaalada kismaayo iyo weliba in axmed maxamed islaam la siiyo 2 sano oo kumeelgaana waxa ay sheegeen oo ay soo jeediyeen inaan lala kulmin axmed maxamed islaam waxay u sababeeyeen in isagu uu khilaafka sabab u ahaa madashoo socoto uu ka tegay uusan xurmaynin dhinacyo kala duwan oo la hadlayna ay diideen ama marar kala duwan ay la hadleenna uu ka diiday sidaasi awgeedna uusan mudnayn in loo tago oo lagala hadlo arrinta la xidhiidhay isku caanashubkii magaalada kismaayo waxay ku goodiyeen oo madaxweynaha soomaaliya ay ugu goodiyeen haddii aad u tagto axmed maxamed islaam ama aad siiso 2 sano oo kumeelgaadh ah 2 sano oo kumeelgaadh ah haddaad axmed maxamed islaam aad siiso annagana doorasho aadan adigu qayb ku lahayn oodan tala ku lahayn oodan saamayn ku lahayn oodan aragti ku lahayn ayaan qabsanaynaa waana isku caanashubaynaa 5 sano cusub ayaana soo qaadanaynaa haddii kale ma siin kartid axmed maxamed islaam 2 sano oo kumeelgaadha waa inuu soo laabto isagoo annagoo kale ah oo waxba wadanin oo waqtigiisii ka dhammaaday kadibna madal xamar ka dhacdan iskugu imaano aan ka wada hadallo sidii doorasho isku mid ah loo qaban lahaa haddii ay dhici weydo annaga taladaada kuma jirno doorasho isku caanashuba ayaana xarumahanada ku qabsanaynaa waa go-aan kaba dambaysa waa xog dhammaystiran saas baana lagu soo kala tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagu wuxuu soo jeeday oo uu yidhi waxaa dhadhexaadinta waday wadamada dariska rajo badanna ma muuqato ima muuqato iyagaan ka warsugaynaa asbuucan soo socda ilaa iyo asbuuca soo socda haddii arrin saxa oo ka laabasho axmed maxamed islaam inuu ka laabanayo isku caanashubkii haddii la waayo wiigga ku xiga waxaan u dhaqaaqaynaa inaan maamul ku dhisno garbahaarey xarunta gobolka gado inaan halkaas oo aan sii wadno qorshihii hore ee ahaa dadka reer jubbaland in maamul loogu dhiso gobolka gado waa xog cusub oo soo korodhay horey waxaan idinkula wadaagay in 25 ilaa 26 ilaa 30 kala gaarsii madaxweynuhu uu u safri doono magaalada kismaayo oo halkaas uu kula kulmi doono axmed maxamed islaam inay wax ka soo noqdaanna waa suurtagal baan inadhiyo siyaasaddu waa gagadoon badan tahay ma aha wax kitaab qur-aan ah ku qoran oo aan dhinac laga mari karin waa wax la isku hayo waa wax waxa weeye laga tanaasuli karo laga laaban karo wax laga bedeli karo lagu sii socon karo kolba dhinac loo leexsan karo weeye marka waa suurtagal baan inadhiyo horey idinkula wadaagay inay wax iska bedelaan oo wax ka soo kordhaan tan naftirkeeda cadaadisyo badan baa jira oo madaxweynaha soomaaliya haysta dhanka beesha caalamka dhanka wadamada dariska ergooyin kala duwan oo u kala tabqaadaysay ayaa jirta waxbaa isbedeli kara laakiin hadda waxa uu kusoo gabagaboobay shirkii ka socday magaalada muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada
وحوي عن خريج كوسو شيء ولي بهير شبه اللي قيب كهاي يا مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود السعودي وحو كوسو قبوي مدحوينه أحمد لكلن هداد ربتد لكن وإنك وحوي آدم وحكم الجارة سنين لبصنا أو كمل جارو أما كدرسي أما مدكردينا إلى هذا سنين هداد سيسو أنا جانا دورشان كو قبصنا إن أدو سمرب إيا بيدو مدحوينو لك عمو تاكتوحيد المدريالو داد كان هيو ويدك حزب القيب كتهين أو ولي بلفتا قرينو قدومية كحيين باتاي قدومية كحيين كحزبك قدومية كحيين ككوباد حزبك لفتا قرينو أديق وي سيدا أوجد ميل هيغا تجينا أحمد نمسينا يا لبصنا أو كمل جارة أحمد لباهي مود مقرشين سيسو شن سنة أو نمايسترا أما لبصنا أو كمل جارة وذكر أو أحمد وصعده سيد الحكت نجسو جاري سمجالة كسماية أي موجريسو ما جرتو أحد الإسلام هالكاسو تاجين وليه هاي ورسكو عن الشوك كيدي تذكر يجوب اللام بأسيي سجوت سبيجا نجال وحوي والله يدورتي بدو sidaas awgeed shanta sano halay daayo sanadna hore uu socdo afar baa u dhiman hadhowna kolley hadduu sii noolaado waa iskaga dardarsan doonaa oo dadka kismaayo mar horuba raggii oo dhan intuu meel kusoo ururiyey hoola baa wuxuu yidhi cid kaloo wax sheegan kartaa meeshan ma joogto cid kaloo madaxweynahan ay dhihi karta ma joogto cid kaloo ku hamin kartaa ma joogto arba haddana loogu sacabatubay qam ahad isla marka dadka kismaayo jooga meel buu ku ogaaday dhammaantood xiliyaha ayuu ka siibay waan garan waayay ninkaas ma muuqaaluu ka duubay ma si kaluu la dhaqmay ma way wada dilan yihiin nin hadli kara kuwa kismaayo jooga oo xil sheegan kara kuma jiro marka axmed maxamed islaam wuxuu yidhi oo banaanka keena oo uu yidhi 2 sano oo kumeel gaara markay ugu yarta waxaan ahayn oo aniga xasan aan ka wada hadlayno ma jiro marka mowqifkaas oo axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ku taagan yahay haddii marka xasan uu ogolaado 2 sano oo kumeel gaara madaxdan maamul goboleedyada iyagana waa ka dhaqaaqayaan doorashada la qabsan waa laga dareeri door cad baa laga tagayaa hadduu 5 sano siiyana nin walba intuu isku soo caanashubo yaa wuxuu leeyahay 5 sano fireesha wataa haye kursiga dheer buu soo qaadan uu soo fadhiisanaya dhuusamareed iyo baynawi iyo hirshabe baashi jawharna waa laga xidhanayaa oo waxaa leeyahay dawladda intay doorashadu socoto wax noo soo geli kara ma jiro marka la isku caanashubana kadib haye wada hadal baan ogolahay khasab bayna ku tahay inuu la hadlo khasab sandulle ku noqonaysaa inuu la hadlo sababtoo maamul goboleedyada dalka oo dhan hadday kaa kala dhaqaaqaan dee maxaa ku yaala inaad kulligood intaas ku yeedhaa tiraada kaale waa ina wada aqoonsane yaad ku khasbanaanaysaa marka waa khasab go-aanka madaxda maamul goboleedyadu ay soo jeediyeen in madaxweynuhu uu qaato waana muhiim dalkana muhiimad gaar ay u leedahay sababtoo ah anigu waxaan aad ula yaabayba madaxweynuhu waa u tegey waa xurmeeyey axmed maxamed islaam waa u tego fadhigiisu ugu tegey waa u soo jeediyey waa tiiday waxa laga barbariyaa garan waaye nin fallaago hal magaalo haysta hal degmo keliya haysta in loo tago anigu maba qabinba laakiin haddii madaxweynuhu ayba dhacdo haddana u tegey oo kusoo fashilmo ceebtaad aragtay uu kasoo qaaday iyo wejigadaxaad aragtay uu kala kulmay haddana waa ku noqonaya waan u tegayaa wax fiican maaha runaatii sidaa ay ku habbooneed waa la ogsoon yahay balse hadday dhacdo naftirkeeda ummadda soomaaliyeed ee jubbaland degta dani uguma jirto 2 sano oo kumeel gaara in la siiyo axmed maxamed islaam oo loogu sahayo dani uguma jirto in xataa la yidhaahdo kasoo laabo doorashadaadii oo intaad soo laabato xamar kusoo laaba naftirkeedaaba dani ugu jirinba in maamul loo dhiso dadka deegaanka oo axmed maxamed islaam oo taagan la dhiso ayaa dadka reer jubbaland dantooda ay ku jirtaa oo midnimadooda iyo wadajirkooda ay ku jirtaa haddaysan dhici weydo dee waxaa weeye kala tag iyo kala fogaansho unba un laga sii shaqeeye wax kale oo laga shaqeeye ma jiro axmed maxamed islaam haddii xataa la yidhaahdo adoo sida adiga kusoo laaba kismaayo oo waxaa weeye soo noqo doorashaan qabaqaabinayna laba goorowba haddana waa kii isku caanashuba sidii hadda uu sameeyey ugu samayn adigu weligaa marka madiidmo baad ku jiri ilaa magaala u xidhan hal magaala u xidhan qof ii soo geli karana ma jiruu taaganya kii u soo gala oo u arka dhaqdhaqaaq inuu samaynayo ama wuu dili ama wuu xidhi waddo kaleeto waa warfaa wiilkii warfaa ahaa waa kii yaraaye dhaqdhaqaaqa badan ordayey ee musharaxiinta u adeegayay waa kii sujuudda u qaaday u dilay raggii uu adeegayeyna waa kuwa meesha ugu xidhan ee senator Elias bedelkii boose uu ka mid yahay muddada halka sana oo meesha waxa way afduubka uu ku haysto
وأيقو سنترى ولي حسن الله يستي ماشي وحريين ولي قد مركب بس هسه وجريا بس أنا بقول بقى يبقى الحرنا وتلوك وحرناني هو إيش على فرس مدح دولة الفترة لكم مركا ولي بضحوينه وجهنا وإلى وقعته تلويك ضد كان جبلان أي أسود جديريان وإلى وقعته تلويك مدحنا مقول قبل أي سود جديد تاسر أنا قلنا بقادرينا وإلى نيرجلينا وإلى قرب تاجنا أبيرو وبهسي قرقوري لفت جرين موقف كأذا كقاتين